نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وبإذن الله جل شأنه أين كلمات كوبان كوران دونا كيف تنال محبة الله. سيدي أدو قاريسا إلهي سبحانه وتعالى محبديس، waayo waa manzilo aad iyo aada u sarraysa, waana arrin aad iyo aada muhiim u ah. waxaa insha allahu tacaala hadalkeennu uu ku koobnaan doonaa laba faqradood ama laba qaybood oo kala ah ahamiyatu hadihi almaxabba wa asbaabu hadihi almaxabba. maxabbada ilaahay subxaanahu wa tacaala la jeclaanayo ee ilaahayna subxaanahu wa tacaala ku jeclaanayo, ahmiyadda iyo makaanada ay leedahay iyo asbaabta iyo wadooyinka lagu gaadho. أولا وقبل كل شيء، محبة الله هي عبادة قلبية جليلة. إلهي سبحانه وتعالى إلا جعلاده وعباده قلبك كسوف ليس وآدي آدوي، بل هي لب العبادة وحقيقتها. بل وحبين ورنكرا عبادة دوحيدا هي حقيقة دي أسل كيدي أساس كيدو بوائيدا. ويا شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله وحو مدارج السالكين ككيري: حقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب. وحمحبض أيتهاي وعبودية دي ربطها هيد إيا أضون لما دي ربطها هيد وذكره شيئيسو. وحنا عبودية ربطي أيتهاي با inaad si dhammaystiran ilaahay subxaanahu wa tacaala u jeclaato, iyadoo jacaylkaana ay weheliso ama uu la socdo si dhammaystiran inaad isugu dhuldhigto ood isugu dullayso allaha aada jeceshahay subxaanahu wa tacaala. marka cubuudiyada iyo yacni addoonnimadaada xaqiiqadeeduba labada tiiray ku taagan tahay waxa weeyi alxubbu taamu maca adulli taam. si dhammaystiran inaad rabbi u jeclaato subxaanah, si dhammaystiranna isugu dhuldhigto oo aada isugu dullayso. hadihi almaxabba hiya aslu jamiici alacmaal, liannaka laa tacmalu ila lima tuxibu xusuulahu aw tuxibu dafcah. maxabbadan iyo jacaylkani waa acmaashaynu samaynanoo dhan asalkooda iyo asaaskooda. waayo waxaad u shaqaynaysaa uun ama aada u camal falaysaa waxaad jeceshahay inaad hesho ama aad jeceshahay inaad ka badbaado. idan hadihi almaxabba hiya min ajalli acmaali alquluubi wa acdamiha. waa acmaasha qalbiga kuwa ugu waaweyn ee ugu culayska badan. bal hiya ra'su liimaani wa asaasuhu wa asluh. bal waaba madaxii iimaanka iyo asaaskii iyo asalkii uu ku taagnaa. waalbaacitu cala alcamal ragma almashaqati alxaasilati minhu. maxabbadu waa ta kugu xambaaraysa camalfalka iyo cibaadada aad samaynayso iyadoo mashaqo iyo tacab badan uu kaa soo gaadhayo, haddana aana dareemay. faalmuxibu lilah yu'tiru muraadahu calaa kulli muraad. faalmuxibu lilah yu'tiru muraadahu calaa kulli muraad. ruuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel waxa uu ka doorbidayaa muraadkiisa iyo muraadka alle subxaanahu wa tacaala waxa uu ka doonayo ayuu ka horraysiinayaa muraad kastoo ka soo hadhay. macnaha waxa alle ka doonayo ee uu ka dalbay ayuu ka hormarinayaa muraad kasta iyo maqdan kastoo ka soo hadhay. faalmuxibuuna lilaahi hum alqaa'imuuna biamri illaahi waalmuntahuuna can nahyi. kuwa allah subxaanahu wa tacaala jecel waa kuwa ilaahay amarkiisa ku taagan, nahyigiisana ka durkaya ee ka dheeraanaya. hadihi almaxabba hiya almansilatu alculyaa allatii tanaafasa ilayha almutanaafisuun.
وشمر إليها المشمرون. محبتني ودرجة وغسر رئيسة dadkii hore ay u tartami jireen ee ay u kala dheerayn jireen guntigana dhiisha la isaga dhigi jiray sidii loo gaari lahaa. وعليها تفانى المحبون dadka muxibbiinta ahlul mahabba ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala jecel ta ay waxa weeyaan si hagar la'aana ay ugu hagar bixeen ee ay gaadheen wa hadhihi al mahabba wa hiya al ladhatu allati man lam yadfar biha fa'ayshuhu kulluhu humuman wa alam. mahabbadani waa macaanka ruuxa aan dhandhamin noloshiisoo dhami qaraar iyo dhibaato iyo warwar iyo walbahaar ay tahay. تالله لقد ذهبوا بشرف الدنيا ونعيم الآخرة. أهل هذه المحبة ضدك محبة يجعلك إلهي أي جعلهم كسفوا بي وكوكب صدي شرف الدنيا ينعم آخرة لبضبا إذ لهم من محبة الله إذ لهم من معية الله أوفر نصيب والمرء مع من أحب فلا عيش إلا عيش المحبين فهنيئا ثم هنيئا لهم. وايو إلهي سبحانه وتعالى معيدي سيئا لجرك ألا ولجره يوك المين يقرب يقاشان بوهي وحاي كهل النصيب كي يدفت وقوي روحنا وحاو لمعيه يقولون عدة وشعلاضه نلولنا واتا أهل المحبة ونلول قيمة له ووحويان معاني وناق له وانا وحاد يا آد روحك كستو مؤمنا مناسب وقوة إنه وسعي وصعده. وحكى ابن القيم كل مدارج السالكين فأصل العبادة محبة الله. عبادة أسل كيد وشعيك إلهي لشعلان أيوه بل إفراده بالمحبة بل وحويا الله إن لقوك لي له الله قاري له محبته وهي عبادنا إلهي مو يعدك لحقكم عليه. وأن يكون الحب كله لله هي حبك هي شعيلك دمانتي إلهي درتي إنه نقضه فلا يحب معه سواه عدك لإلهي لشعلان مايو وإنما يحب لأجله وفيه وحاو شعلان ياؤون إلهي درتي لكن عد إلهي وبربر وضوء محبتي سي محبة إلهي وصميه سمين ما يوتاسي كدع ميس كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه سيدا أنبياء إلهي رسوشي سي ملائكتي سا يا أولياء الله وشعلان يو فمحبتنا لهم من تمام محبتي شعيل كينو كوا شعل هاي وحي كمتها يقول لما يسترك شعيل كينو إلهي شعل هاي ما دام على درتي هاي إنه شعلاني وليست محبة معه لكن معها محبة وحويا بربر صعوتا تا إلهي سبحانه وتعالى تبربر صعوتا ما هو شركها كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبي سيدا كوا قال هذا دقن كودو يهي كوا إلهي سكدي سمايستا كوا إلهي أي بربر دقيان وأي كلمد دقيان كوا سو أي وشعلان أيان سيدا إلهي سبحانه وتعالى وشعليين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الله وحده سبحانه ضدكي وحكم مدعى كوا إلهي سكدي كي لنا يا أنداد كوا إلهي بربر لغيان وأي كلام لغيان ندقوا وشيغا يعني لا بربر لغيان لليه هو أردقما مركا مخلوقات ضعيفة أي إله خالقة أي كدغيان إنay u dhigmaan oo ay barbar dhigayaan ama ay ku masalayaan. marka dadkii waxa kamida kuwa Ilaahay sokadii yeelanaya kuwa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay barbar dhigayaan oo ay ugu shariik yeelayaan kuwaas oo u jeclaanayaan sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u jeclaanayaan. Allah waxa uu walladina aamanu ashaddu hubban lillah kuwa muuminiinta ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga maxabo iyo kalgacal badan waayo maxabada muuminiintu waa maxabatun khaalisa waa maxabo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u barax tiran oo cid kale aan la wadaajin oo cibaadada Rabbi ay u khaalis yeeleen kuwaas isa maxabadoodu
dee waa maxabbadaa shirkiga ah ee khaaliqi iyo makhluuqii ay isbarbar dhigayaan ama ay simayaan. idan yacni halkaas waxaa ka soo baxaysa 3 qaybood oo maxabbo ah: xubbullah wa xubbun fillaah wa xubbun maca allah. xubbullah in ilaahay subxaanahu wa tacaala la jeclaado, wa xubbun fillaah in ilaahay dartii wax loo jeclaado. waana taynu hore ugu soo tilmaannay inay taasi ta hore dhammaystirankeedun ka mid tahay, oo jacaylka alla la jeclaanayuunbay ka dhalanaysaa ciddii ilaahay jecel ee waxa weeyaan mu'miniinana alla dartii in loo jeclaado, sida ambiyada iyo malaa'igta iyo rususha iyo awliyada iyo saalixiinta iyo dadka hanuunsan. wa xubbun maca allah iyo maxabbo ilaahay tiisa yacni barbar socoto ilaahay wax lala jeclaanayo, waana ta shirkiga ah ee aan bannaanay. waxa uu sheekhu yidhi markaa fa xubbullaahi huwa alwaajibu cala aljamiic. ilaahay in la jeclaadaa waa waajibka mu'miniintoo dhan saaran. waalxubbu fi illaah min samaraati hada alxubbi wa nataa'ijih. ilaahay dartii in wax loo jeclaadaana jacaylkaa alla la jeclaanayo midhaha laga goosanayo iyo nataa'ijka ka dhalanayo weeyi. wa huwa raajicun ilaa asli alxub. waxaana kaasi u noqonayaa jacaylkii asalka ah ee alle la jeclaanayey ayuu u noqonayaa oo waxa weeyaan samare iyo midho wuu yahay. wa huwa xubbullah waa ilaahay subxaanahu wa tacaala jacaylkiisa. wa ama alxubbu maca allah fahuwa alxubbu ashirkiy aw almaxabbatu ashirkiya. laakiin ilaahay in wax lala jeclaado jacayl waxa weeyaan ka ilaahay la barbar dhigayo lala simayo, kaasi waa xubbi ama maxabbo shirki ah. waana ka ilaahay ku tilmaamay: wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibbuunahum ka xubbi illah. idan hadihi almaxabba hiya almiqyaasu alasaasiyu aladi yuqaasu bihi madaa calaaqatika billah. maxabbadani waa halbeega iyo qiyaaska asalka ah ee ruuxa lagu qiyaasayo ama lagu qiimaynayo hadba calaaqada ilaahay uu la leeyahay, qurban wa bucda wa quwatan wa dacfa, xagga dhowaanshaha ama dheeraanshaha, xagga awoodda ama taagdarrada. walaa yuxabbu lidaatihi ila allah. yacni daatadiisa looma jeclaado alle mooye axad kale. wa gayru llahi inamaa yuxabbu liajli illaah. ilaahay wixii ka soo hadhay waxa uu loo jeclaadaa ilaahay dartii ee daatadiisa looma jeclaado. qalahu shaykhu lislaam calayhi raxmat ullah. hadihi almaxabba hiya almuqadamatu calaa kulli shay. waa ta wax walba laga hormarinayo ee mudnaanta koowaad la siinayo. ilaahay waxa uhi subxaanah: qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum wa cashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuha wa tijaaratun takshawna kasaadaha wa masaakinu tardawnaha axabba ilaykum min allahi wa rasuulih wa jihaadin fii sabiilihi fatarabbasuu xataa yaatiya allahu biamrih wallahu laa yahdi alqawma alfaasiqiin. allah waxa uhi jala jalaaluh: nebi maxamedow waxaad ku tidhaahdaa oad u sheegtaa. waa farriin la farayo inuu mu'miniinta u sheego si ay arrinkaa ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan. waxaa la yidhi nebi allow waxaad ku tidhaahdaa: in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum, hadday ahaadeen aabbayaashiin iyo inamadiinnu, wa ikhwaanukum wa aswaajukum, iyo walaaladiin iyo xaasaskiinna ama ooridiinnu, wa cashiiratukum, iyo qaraabadiinna iyo tolkiinnu, wa amwaalun iqtaraftumuuhaa, iyo xoolo aad kasbateen oo aad shaqaysateen, wa tijaaratun takshawna kasaadaha, iyo ganacsi aad ka cabsanaysaan inay idinku qiimo jabto oo macnaha ay idinka socon weydo, wa masaakinu tardawnaha, iyo guryo aad raalli ka tihiin. intaasi haddii ay yihiin waa 8 arrimood oo arrimaha adduunyada ka mid eh. intaasi hadday ahaadeen axabba ilaykum min allahi wa rasuulihi wa jihaadin fii sabiili, kuwa xaggiina looga kalgacayl badan yahay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo alla dartii oo loo dagaalamo. macnaha arrimaha adduunyadee lasoo tilmaamay haddaad ka jeceshihiin ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jihaadka,
ood kuwaa ka doorateen alla iyo rasuulkiisa iyo camalkaa wanaagsan maxaa jawaabku u yahay fatarabbasuu suga xataa yaatiya allahu biamrih ilaa ilaahay amarkiisa uu keenayo oo macnaha cuquubo iyo cadaab idinku dhacayo wallahu laa yahdi alqawma alfaasiqiin kuwa faasiqiinta ilaahay taacadiisa ka baxana ilaahay subxaanahu wa tacaala ma hanuuniyo aayaddan waxaa ku sugan waciidun shadiid goodi aad iyo aada u daran oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay dadku hadday adduunyo aakhiro ka doortaan dee inay cuquubo iyo cadaab sugaan waa tahdiid iyo hanjabaad iyo goodi cabduraxmaan naasir asicdi aayaddaa markuu fasiraayo waxa uu yidhi وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وحول آية شرفت بدن ودليل كوين آت المامية واجب لماذا أي واجب تهي الله رسولك سئل لجعلاده وعلى تقديمها على محبة كل شيء هي محبة الله رسولك سئل لقه الرئيسية وحكستو كسوهري محبة دودا وعلى الوعيد الشديد وحكلوا آيات آية سنيسا قود أدق والمقت الأكيد إيا على آدي آدو أدق وكسو أرورتي على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله معناها آيات وحكسوغا وعيد آدي آدو أدق إيا على أدق وكو جهنم كسعته على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله وحقود جاي وعيد كاسي كسعدا روح كسته ووحيابها الله سو شيغي سيديد الرموضة وحكم مده ويهي مدوغا جعيل بدن يهي الله رسولك سي جهاد معناها الروح الرماها الدنيا وحكم مده كجعلاده ee ka hormariya jacaylkii ilaahay iyo kii rasuulka iyo jihaadka waciidka iyo goodiga adag ayaa ku soo arooray waxa ruuxu isweydiin karaa oo ruuxu inuu adduunyada ka doortay aakhiro alla iyo rasuulkiisa maxaa astaan iyo calaamo u ah sheekhu isagoo taa tilmaamaya waxa uu yidhi وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران arrintaa astaanta iyo calaamada lagu aqoonsanayaa waxa ay tahay ruuxa marka laba arrin loo soo bandhigo axaduhumaa yuxibbuhu allahu warasuuluh labada arrin midkood alle iyo rasuulkiisa ayaa jecel walaysa linafsihi fiihi hawan naftiisana wax hawa ah uguma sugna macnaha arrinkaa loo soo bandhigay waa arrin alle iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin oo ay ka dalbeen oo ay ka doonayaan waxaba yaraatee dheef ama dan adduunyo oo ka dhaxarkayo oo ugu jirtaana ma jirto wal-aakharu tuxibbuhu nafsuhu wa tashtahiih arrinka labaad ee loo soo bandhigay naftiisu waa jeceshahay oo way doonaysaa waanay tamaniyeysaa walaakinahu yufawitu calayhi maxbuub allahi warasuulih aw yanqusuh ha yeeshee arrinkan dambe waxa uu seejinayaa ama uu dhaafinayaa ilaahay iyo rasuulkiisu wixii ay jeclaayeen ay ka doonayeen ama waa ka nuqsaaminaya macnaha ruuxii waxa lagu imtixaamay labada arrimood mid waxa weeyi dee alla iyo rasuulkiisa ayaa jecel wax dheefina uguma jirto midna naftiisa ayaa jecel oo dheef adduunyaa ugu jirta laakiin haddii uu qaato arrinkaasi wuxuu seejinayaa oo meeshaa ku dhaafaya ilaahay iyo rasuulkiisu wixii ay jeclaayeen ayuu seejinayaa amaba uu ka nuqsaaminaya oo wax ka midii uu ka baaba'aya fainnahu in qaddama maa tahwaahu nafsuhu calaa maa yuxibbuhu allah ruuxu markaa waxay naftiisu jeclayd ee dantu ugu jirtay hadduu ka hormariyo alla wixii uu jeclaa dalla dalika calaa annahu daalimun taarikun limaa yajibu calayh taasi waxa ay tusinaysaa inuu ruuxaasi yahay daalim naftiisii dulmiyey oo dee dheefteedii garan waayey iyo inuu yahay ruux ka tegey waajibkii iyo xilkii saaraa idan ruuxu haddii uu doono yacni maxabbada ilaahay iyo rasuulkiisa iyo umuurta adduunyada keed hormarinaysaa
labadaa astaantooda iyo calaamadooda hadduu doono markay labadaa arrin la gudboonaadaan naftiisu waxa ay samaynaysa ha eego ma arrinka alle iyo rasuulkiisa ayaad hormarinaysaa mise hawadaada iyo naftaadu waxa ay doonayso waxaad hormariso unbaad u jacayl badanta haddaad arrinka alle iyo rasuulkiisa hormariso iyagaad cid walba ka jeceshahay haddaad naftaada iyo hawadeeda hormariso dee naftaada iyo hawadaadaad ka jeceshahay alle iyo rasuulkiisa marka hadba ficilka iyo dhaqanka aad ku dhaqanto ayuunbaa tilmaamaya maxabbadaadu maqaamka iyo heerka ay taagantay saxiixaynkana waxaa ku sugan xadiidu anas inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam halaathun man kunna fiihi wajada bihina xalaawata aliimaan saddex arrimood yacni kuwa dhexdooda laga helo ama ruuxa ay dhexdiisa ku sugnaadaan waxa uu arrimaha ku helayaa iimaanka macaankiisa kow an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahumaa waxaa ugu horeeya inuu ilaahay iyo rasuulkiisu ay ahaadaan kuwo xaggiisa looga kalgacayl badan yahay wax alla wixii ka soo hadhay macnaha maxabbada rabbi iyo maxabbada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa inay ka horayso y ka mudan tahay maxabbo kastoo ka soo hadhay hadihi almaxabba ama hada alxubbu yuurisu alqalba xalaawatan tataladadu biطaacati illah xubbigaa alla iyo rasuulkiisa la jeclaanayo ee qalbigaaga qoynaya waxa uu ku dhaxalsiinayaa macaan aad taacaadkii iyo cibaadaadkii ilaahay macaansanayso o aanad dhibsanay walida kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam ashadda annaasi xubban lilah wa akharahum lahu cibaada nabigeenna subani salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh waxa uu ahaa dadka ka ugu jacayl badan jacaylka alle uu jecel yahay subxaanah sidaa darteed buu ahaa dadka ka ugu cibaado iyo cabsi badan waayo camalka iyo cibaadadu waxay ka dhalanayaan un hadba maxabbadaadu maqaamka iyo meesha ay marayso iyo halka ay taagan tahay sidaa darteed ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kama fi lbukhaariyi min xadiidi anas wajucila quratu caynii fi salaah waxa indhadoogsigayga ama indhaqabowsigayga laga yeelay salaada macnaha meesha aan ku indhadoogsanayo halka aan ku indhaqabowsanayo halka aan ku raaxaysanayeen deganaanshaha iyo tumaaniinada aan ka helayaa waa salaada rabbi allah markaan hor joogsado subxaana marka waa inaad isqiyaastaa haddii salaadaad iyo cibaadaadkaagu kugu culus yihiin waxay taasi dhaawac ku tahay maxabbada aad ilaahay u hayso sidoo kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu bilaal ku odhan jiray yaa bilaal aqim isalaa arixnaa bihaa yaa bilaal bilaalow salaada u aqiim noogu raaxe halka laga yaabo dadku maanta inay yidhaahdaan arixnaa minhaa nooga raaxe waayo yacni culayska iyo caajiska iyo sida ay u dhibsanayaan nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu odhan jiray arixnaa biha yaa bilaal noogu raaxe rasuulku sala allahu calayhi wasalam yacni mashaakilka iyo walbahaarka iyo tacabka adduunyo waxa uu kaga nasan jiro uu ku ilaabi jiray cibaadada iyo camalka saalixa ah marka ay wax ku dhacaan waxa uu carari jiray xagga cibaadada marka arrin la soo gudboonaado waxa uu dhaqaaqi jiray xagga salaada saxiixul jaamica waxaa ku sugan xadiidu xudayfa kaana idaa xasabahu amrun sallaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrin marka uu la soo kulmo adagi waa tukan jiray walidaalika waa tacdeedu markay madoobaato ama dayax madoobaadku u dhaco layna amray salaada in la tukado waa macnaha dee aayaadkaa waaweyn ee cabsigelinta xambaarsani markay dhacaan halka loo cararayaa waa salaada hadday abaara dhacaan waa ta roobdoonta la tukanayo yacni salaadu waa mid loo kaalmaysanayo arrimaha oo dhan wastaciinuu bisabri waasalaa waxaa saxiixaanka ku sugan xadiidu anas ana rajulan sa'ala annabiya sala allahu calayhi wasalam faqaala mata asaaca yaa rasuula allah nin ayaa waxa u yihi rasuulkii allow saacadda qiyaame waa goorma qaala maa acdadta lahaa waxa u yihi waad igani su-aalaye maxaad u diyaarsatee kaa horeeya qaala maa acdadtu lahaa min kaiiri salaatin walaa sawm walaa sadaqa walaakinii uxibu allaha warasuulah
وحاول والله عمل يا عبادة بدن يا صلاة بدن يا صوم بدن يا صدقة بدن أنسب يا مجرته هيا شاء الله يا رسول في سانجعله قال أنت مع من أحببت وحاول هذا أنت مع من أحببت وحد لمعت أي أميل لقال صوصاريا عدة شعلاتي تاسي مركا ودرجة آدية أبو سريسة وفي رواية المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب رواية كالوحي أيدي حديثكم روح وحاو شعلانا يا قلاء نسوب قارن مركز رسولك صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب روح وحاو لما عيه لما يليه من لقليا عضو شعلاده قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام مثل فرحهم بهذا أنس وحاولي ما أردتك مسلمين تو شيء فرحي إسلام لماذا الدبدين سيدة حديثك أو فرحين ومر رسولك صلى الله عليه وسلم من كايد عمل بدن ما سمينا علي رسولك سان شعلها وكل أنت مع من أحببت عدة شعلات لما يلتعي وحانا سوية حديث كان مسلمين تمالتها أي مقلين ما أرد إسلام لماذا الدبدين يعني سيدا صوك لو حيوه فرحان يعني فرحده وهوي مركا إسلام لمن لقيه مادو حديث كان سيدا وهو فرحان بهذه آدو إلى أبو إلى أنس وحاول مركا والراوي حديث كان فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معه وإن لم أعمل بأعماله أنس وحاول أنا وحن شعلها يا الله يا رسول كيسا يا أبو بكر يا عمر وحنا رجينا يا إن الله ميل نقض ولو عمل كوضا بيان سمين إنك كانت مناسب كإنوة يا إنو رجينا نواتاس إنه الله يا رسول كيسا يا أبو بكر يا عمر يا دتي وناكسنا إنو شعلانه سيئنو معوضا ونقنه ولو عمل كوضا بيان سمين هذه المحبة تشمل اللسان والجوارح والقلب محبة سوحي عام ليس أفكا إيا أدنك إيا قلبك انتبا عربك إيا حبنها إيا قلبك انتبا يعني وحويان عمل كيدو وسامين إيا إن الملك قد اصطفى خداما متوددين موطئين كراما رزقوا المحبة والخشوع لربهم فترى دموعهم تصح سجاما يحيون ليلهم بطول صلاتهم لا يسأمون إذا الأنام ينام قوم إذا رقد العيون رأيتهم صفوا لشدة خوفه أقداما وتقالهم موتى لطول سجودهم يخشون من نار الإله غراما شغفوا بحب الله طول حياتهم فتجنبوا لوداده آثاما فهو شاعر كاسلها ذاتك وناكسن صالحين تأه إلهي سبحانه وتعالى أيها الضورته سهلي إنay khidmadiisa iyo camalkiisa iyo cibaadadiisa ay umrigooda ku camiraan waxa lagu arsaaqay maxabo iyo kalgacal alla iyo rasuulkiisa ay jeclaadeen taasina waxay dhaxalsiisay rabbigood inay u khushuucaan oo indhahooda ay ilmeeyaan waxay habeenkooda ku nooleeyaan salaad dheer mana ka yani kama daalaan oo dadku marka ay hurdaan salaadaas ay ku raaxaysanayaan waa dad marka ay dadka indhahoodu seexdaan iyagu saf u gala ilaahay cibaadadiisa iyo cabsida ay ka cabsanayaan waxaad moodaa dad dhintay sujuudooda dheer laakiin waxay ka cabsanayaan cuquubada iyo cadaabka rabbi waxa ilaahay ugu nicmeeyay maxabadiisa oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ay jeclaadeen marka jacaylkay alle jecel yihiin wuxuu dhaxalsiiyay dambi oo dhan inay ka durkaan الحياة السعيدة والمعيشة الواسعة في محبة الله نلو وناقة هي معيشة معاني إلهي محبتي سيكو جرتها وها حقيقة إن يضدك دونيان وجعله نلو وناقسن والدقن انضرر لهاي تاسي وحي كجرتها في محبة الله شيخ الإسلام مجمع الفتاوى وحكوه لمجلد كتيدة لا تناصب حدا كوبي صدر وحاول قال بعض الشيوخ دقار كود با وحي إلهدين لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب
وشيخ الإسلام يقول علماء قاركود بوحي إلهين يعني وحويان وحن أحواش قاركود وحن صومر حالات أن إراهضه هدي أهل الجنة أي سديهين ولا نرور ونكسب بيك السويه معناها تيقفكوا إلهي سبحانه وتعالى عبادتي سمرك ونردن سنة يعني أحوال باقفك صومرتا ومر إيمانك وقوي ودعرك صومريا مروى دحدحات مروى ضعيف مركا أحواش إيمانك وقوي وغيهي روح وحوالبا وحوكتش علي عبادتي يعملك صالحا مركا وحوي شيوخ دقاركود بايري وحي صومر أحوال أن يراهضه والله أهل الجنة أعطي حالة لو كلا كسوغيهين خير وين بابي كسوغيه يعني معانك هي بدنك أو يعني شيخات عبادتك وهيو إلا هو يري وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة وحويلي يعني الدنيا دكما السقنا نعمه يبرواقه أو شبهدت آخره إلا نعمة إيمانك هي معرفة إلهي أنت الله أقول صدور لبرته لشعلاده يعني نعمة إيمانك هي معرفة ربي هي محبة إلهي أي أمد شبهده ودو وحويا نعمة آخره وحوي هذه ليس ويديو تلو الدنيا ما كسرتها برواقه هي لبنان شبهده أما ودو تآخره جوابته وحويا نعمة إيمانك هي محبة هي معرفة إلهي تاس أي شبهده تآخره حقيقة شبهده يعني نعمة آخره روح ورور ملء والبهار ملء مروغا ملء يعني وحو كجرا حصلونان إيا ريرين إيا برواقه وحتى الله مد الروح مؤمنك إيمانك معانك سعودا دمي تاسو كلو كجرا وورور إيا دباتا وما هيسته دقنا شو كسوي ابن القيم وحول في غاثة اللهفان وحول كل من مسائد الشيطان مجلد ككوبات صفحة تضباطا إيا اللبا باب كتبنات في علامات مرض القلب وصحته وحولي قال بعض العارفين علماء الله يقانك أقار كود وحي لهذه مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها وحي لهذا علماء راسي والليدتك الدنيا كنولي ومساكين أو وحبوا بي وحي الدنيا كبحين إيقون دندمين وحي يقوم معانا يا الدنيا كسقنا قيل وما أطيب ما فيها وحليلوا الدنيا وحوقوا معانا كسغني ومحي قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته وعويلي والله إلا تعلاضه لو هشدوه وإلا تعلاض لكلك إلهي سبحانه وإلا بنعم يستوه إلهي ذكره سيطاعته صلى الله راح يستوه تاسع الدنيا وحوقوا معانا كسغني وقال الآخر والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته وعو شيخاك لويلي والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته والله إنني الدنيا كهدادين وأنا يكون معانان إلا إلهي تعالي في سيطاعتي سموياني ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته جنادنا كمي هجاجين إلا أركتد إلهي إلا أركايو وحويان آخر المؤمنين تو إلهي سبحانه وتعالى كأركيان مويانه إذا سؤال شماشة تعالى وحويان هل نحب الله سؤال شمركا ماشة تعالى وحوي هل نحب الله إنكم تدجين أنه وقتكم يسككوا بيهي قلت إلهي سبحانه وتعالى ما شعله إذا كان الجواب نعم هذا جواب تطهي ها فما الشاهد محاد دليلك يا أستان فايته إلهي سبحانه وتعالى وحول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله وحول وحق ترى نبي الله هدياتهين الله هو جعل فاتبعوني أنا يصور راعة يحببكم الله إلهي وايد شعلانيا ويغفر لكم ذنوبكم ذنب يدين أنا ربي وايد دافيا
والله غفور رحيم إلهي ومدًا بدافس بدن وأدومري سون حريصة. إذن هذه الآية وحلقوا قيحي أصدان تلقوا قرانيو إلهي إنو كجعلي هاي إيا إنكالي إيا أديك اللفتاض الله إنا تعشي إنكالي لابد هو كجرشا وهذه أدقو إلهي تعشه هاي كادبتهاي شيغ شماه رسولك الراع dabadeed haddaad rasuulka raacdana ilaahay waa ku jeclaanaya sida aad ku garanaysaana waxa weeye rasuulka ma raacday mise maad raacay illa yuhibbukumullah jawaabka shardigu ilaahay waa idin jeclaan maxay ka dhalanaysaa fattabi'uuni idan rasuulka haddaad raacdo ilaahay waa ku jecel rasuulka haddaad ka baydho ilaahay kuma jecla calaamada lagu kala saaraya waa camalkaaga iyo mutaabacadaada حسن البصري وحول عليه رحمة الله ادعى قوم محبة الله فابتلوا بهذه الآية قل يا وحي شيكتين إلهي ما متعلهي وحول حسن البصري آيضنا لغو امتحامي آيضا وحي العلماء ورنشرين هذه آية المحنة آيضا هو آية امتحانك يلا يسكن امتحامي وأيو مركا إلهي ما متعلهي waxa la yiraahdaa haddaad jeceshiin sidaa yeela oo calaamada jacaylka ilaahay aad jeceshiin waxa weeye dee rasuulku soo diray inaad raacdaan haddaad rasuulka raaci weydaan jacaylkaad sheeganaysaan waxba kama jiro ibn al-qayyim waxa uu ku yiri fi al-madaarij mujalladka 7 safxada 19 وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها هذه جعلك الله جعلان يا أيتهاي محبة داسي عبادة ألا عابد حقيقة دي سرته هذيتاي فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه وحجعلك سكو حقيقه بيا وكرمه بيا وكليه إن إلهي أمركيس لقى صبح دينين لقته فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة إلهي أمركيس مرك الراع النهي سنة لقته أي عدانيسا أظن ماذا قبتها يجعلك قبتها ألا جعليها ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما عليها وشاهدا لمن ادعاها سيدا درته فالله حكي لي سبحانه يعني رسول كيس الراعتان كالراعيو أيو أستان إيا علامات إيا مرخات وقدقي عدة محبة شيئة ووحل إلى ضيد كدبتها رسول كالراعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وعد كتير نبي الله هداد إلهي تعشين أو إذن كربتها أنبو يصدر الراعة مركز إلهي إذن شعلانيا فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله وشرطا لمحبة الله له إذا رسولك إلا الراعة صلى الله عليه وسلم أيها لغاية لراعتان كرسولك الراعي أيها لو شرديي محبة إلهي تعليه ووحل إذا هداد إلهي تعشين رسولك الراعة شعيلكو إيجا إلهي تعلان لها أنا الشرط وحل وغيه لي إني رسولك الراعان ووحل إلى أبديعات راعدان يحببكم الله مركاسو الله إذن تعلان إياه تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في الفعال بديع هذا محال في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع أو شاعر كاسولها يعني سورة قلماها أضول إلهي بان شعلي هضنا يند عاصده ويشعلك ويدور ريهي ولا داع إلهي ويروح عده شعليهي هو أطيع إما عاصيه أبو الحسين الوراق وحولي حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت نولش قلبه وحاي كجرتا الله النول حيغا إن ولي دمنين الله حسكيسا هي حسوستيسا أي قلبك كنولادا وقال بعض العارفين عارفين تبركون وحيدادين علماء الله يقانك والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف والله بقرد إيين مضي دلين هدي أوجيه نعمدا نكجره وبين نقصه ويرري لها ينور ما هي صيفها ينوسو قرن لها معنى وحوي هذا بقرد إيين ملوك تيام القبينكو وحلقا يابا هبين ودنبا والبهاري ورورين عني سيحانا ونلبين دو ديسكوكين وحلقا يابا مسكين كاسة إحنا وقتها ودهلين
laakiin alla yaqaankiina halka uu seexdo inuu salaad iyo cibaadadoon uga kaco oo aanu mar keliyaba isrogin. waxaa markaa macnaha iyo muraadku u yahay dee ruuxa alla yaqaankii nolosha uu ku jiro wanaaggeeda iyo macaankeeda iyo dhadhankeeda cid haysataaba ma jirto. markaa kuwan maalka iyo mulkiga haystaa nolosha kuwan caarifiinta hadday og yihiin waabay nagu soo weerari lahaayeen buu yidhi. waana xaqiiqo jirto yacni ruuxa dhandhamiyey macaanka iimaanka iyo maxabbada ayuunbaa garanaya. waayo adduunyo dhinac walba haddaad ka soo qabsatood faraqyada ka buuxsato yacni ku nafisi maysid oo ku degi maysid oo ku xasili maysid. laakiin iimaanka hadduu qalbigaaga qooyo adduunyo hel ama ha heli cibro badan kulama leh. ibnulqayim waxa uu ku sheegay madaariju saalikiinka baabka maxabbada 10 sababood oo soo jiidaysa ama keensanaysa waxa weeyaan maxabbada ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaa ka mid ah asbaabtaas waxyaabaha jacaylka ilaahay lagu kasbado ama ku dhaxalsiinaya. kow qiraa'atu lqur'aani bitadabburi watafahumi limacaanihi wamaa uriida minhu. qur-aanka in la aqriyo iyada oo loo fiirsanayo oo la fahmayo macaanidiisa iyo muraadka looga jeedo. maaha iska dul akriyo dul cararo xuruufta uun si fiican u akri adigoon macaanida iyo xaqaa'iqa hoos ugu dhaadhicin macnaha iyo muraadkana aan fahmin. waayo in fara badan waxa qur-aanku aanu dadka iyo bulshada saamayn ugu lahayn qiraa'ada la akriyayo ayaa qiraa'a mujarada can itadabburi watafakur, qiraa'o ka dharla u fiirsasho iyo faham iyo waxa weeyaan in laga fakaro laysdul taago. qur-aankana waxaa loo soo dejiyey liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaab, in loo fiirsado oo laysdul taago lagu waantoobo wax lagu qaato. taasina waxay u baahan tahay macaanida qur-aanka in la barto sida xuruuftiisa iyo alfaadiisa loo baranayo si aad u garato maxaa ilaahay kaa doonaya, maxaase uu kuu diidayaa, muxuu ku farayaa, maxaase waxa weeyaan uu kaa reebay si aad u fahamto. marka qur-aankii in la akriyo iyada oo u fiirsasho iyo faker iyo faham loola imanayo macaanidiisa iyo muraadka looga jeedo waxa uu ku dhaxalsiinayaa alla inaad jeclaato. xabiibukum muxamed sala allahu calayhi wasalam qaama biaayatin xataa asbax yasjudu biha wayarkac kama saxa fi xadiidi abi dar. nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam hal aayad ayaa uu habeen dhan qiyaamkeedii ku qaato uu ku sujuuday uu ku rukuucayey ilaa waaguu ugu baryey. wain tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcaziizu alxakiim. hadihi alaaya wallahu leeyahay in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcaziizu alxakiim. aayaddaa keliya ayaa ku celcelinteeda iyo siduu macaanideeda u dhuuxayo hoos ugu dhaadhacayo ayaa waagii ugu baryey. taasi waxay ka turjumaysaa qur-aanka qiraa'adiisa iyo tacabudka lagu cibaadaysanayo inuu u baahan yahay tadabbur iyo u fiirsasho iyo fahm. waxa uu qodobka labaad u yahay kasratu taqarubi ila allahi binnawaafili bacda adaa'i alfaraa'id, in la farabadiyo dhowaanshaha ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayo sunanta faraa'idda marka la guto kadib. waayo waxa ugu horeeya waa faralka, waxa ku xigaana waa sunnaha. waxaa bukhaari ku sugan min xadiidi abi hurayra xadiidka rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ka warinayay rabbigii ee xadiidulqudsiga ah rabbi inuu yidhi wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabba ilaya mima aftaradtuhu calayh. ilaahay waxa uu ihi addoonkaygu iguma soo dhowaado shay aan uga jacayl badanahay wixii aan ku faral yeelay. macnaha alla waxa uu leeyahay waxaan ugu jecelahay ee addoonkaygu iigu soo dhowaadaa waajibkaan saaray waa inuu guto. walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibah. allah waxa uu ihi addoonkaygu ka zuuli maayo inuu iigu soo dhowaado sunnayaasha ilaa aan jeclaado oo maxbuub u noqdo. idan hadihi nawaafil tanquluka min darajati almaxabati ilaa darajati almaxbuubiya. nawaafisha iyo sunnayaasha badani waxay kaa soo raraysaa darajadii maxabbada inaad ilaahay jeceshahay
waxaanay kuu soo raraysaa darajadii maxbuubiyada oo ilaahay inuu ku jecel yahay ah. waxaanad ogaataa ana darajata almaxbuubiya hiya fawqa darajati almaxaba, yacni darajada maxbuubiyada oo ah in lagu jeclaado alla ku jeclaado, iyada ayaa ka muhiimsan oo ka mudan darajada maxabada oo ah adigu inaad jeclaato. waayo salafku waxay yidhaahdeen laysa sha'nu an tuxib inama sha'nu an tuxab, yacni arrinka sii muhiimkii maha adu inaad tidhaahdo anaa jecel, yacni waa muhiim inaad alla jeclaato, waxase ka sii mudan oo ka sii muhiimsan weeyaan muraadku an tuxab, in lagu jeclaado oo noqoto maxbuuban cinda allaahi caza wajal, mid ilaahay agtiisa laga jeceliy. waayo rabbi hadduu ku jeclaado dee wax kaa maqanba ma jiro. qodobka saddexaad ee maxabbada lagu gaadho waa dawaamu dikrihi calaa kulli xaalin billisaani waalqalbi waalcamali waalxaal, si joogta ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo xuso xaalad wal oo lagu sugan yahay. carabka rabbi in laga xuso, qalbiga rabbi in laga xuso, camalka iyo cibaadada iyo xaalka in rabbi lagu xuso. fanasiibuhu min almaxabbati calaa qadri nasiibihi min aldikri, ruux walba nasiibka uu maxabbada ilaahay ku leeyahay waa nasiibka uu xuska ilaahay ku leeyahay. oo macnaha ruuxuu ilaahay uga xus badan yahay iyo xasuus ayuu uga maxabba iyo kalgacal badan yahay. famaadaama kaana arasuulu ashadda annaasi xubban lilah kaana akharahum lahu dikraa kamaa tasifuhu caaisha. maadaama rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ahaa dadka ka ugu jacaylka badan jacaylka uu ilaahay u qabay uu jecel yahay, maadaama rasuulku maxabbada ugu badan uu ku sifaysnaa, isaga ayaa dadka ilaahay ugu xasuus iyo xus badnaa. sida caaishaba ay ku tilmaamayso qooridiisii sharafta badnayd, waxay lahayd kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaani. nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ahaa ilaahay mid xusa xaaladihiisoo dhan, hadduu jiifo, hadduu joogo, hadduu safar yahay, hadduu negi yahay, yacni xaalad kasta ilaahay waa ku xusi jiray subxaana. waana tilmaanta mu'miniinta alla uu ku tilmaamay aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubihim. mu'miniintu waa kuwa allah xusaya iyagoo taagan iyo iyagoo fadhiya iyo iyagoo jiifa intaba. waxaana la yidhi man axabba shay-an akthara min dikrih, ruuxa shay jeclaada hadal hayntiisuu farabadiyaa. waman axabba shay-an tacallaqa qalbuhu bih, ruuxa shay jeclaadana qalbigiisa ayaa ku tacalluqoo ku dhega. marka ilaahay haddii aad jeceshahay hadal hayntiisu hadalkaaga ka madhnaan mayso, ee had iyo jeer carabkaagu waa ka qoyanaanaya. sunanu tirmidina waxaa ku sugan xadiidka cabdillaahi ibnu busrin inuu yimid nebiga sala allahu calayhi wasalam, markaasuu yihi yaa rasuula allah ina sharaa'ica alislaami qad kasurat calay faakbirnii bishayin atashabbahu bih. waxa uu ihi rasuulkii allow, sharaa'icdii islaamku waa igu baahday oo waa igu tiro badatay, bal waxaad ii sheegtaa waxaan ku tuntuunsado oo aan awoodi karoon hanan karo. qaala laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illaah. waxa uu ihi war carabkaagu yuu ka zuulin inuu ka qoyanaado ilaahay xuskiisa iyo dikriga alle subxaanahu wa tacaala. hadda waxaanad ogaataa ilaahay markaad xasuusan tahay dee salaadi ku dhaafi mayso, soonno ku dhaafi maayo, qur-aan ku dhaafi maayo, qiyaam ku dhaafi maayo. yacni cibaadaadka oo dhan waxa asal iyo asaas u ah xusuusta iyo xuska rabbi subxaana. oo yacni ilaahay aayaddii qur-aanka waa kii kula aqimi salaata lidikri, yacni salaada waxaa loo oogayaa xuska alleh. marka cibaado kastood samaynayso waxaad u samaynaysaa xusuustaad ilaahay xusuusan tahay. markaa ruuxa carabkiisuba ilaahay xuskiisa uu ka angegi waayey ee mar walba uu ka qoyan yahay, dee cibaada seegi mayso, camal saalixina dhaafi maayo. waxaa kaloo rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam kama fii xadiidi abi muusa fi lbukhaari mathalu aladii yadkuru rabbahu waaladii laa yadkuruhu kamathali alxayi waalmayit. yacni ruuxa ilaahay xusayee xasuusan waxa matalkiisa iyo tusaalihiisa uu yahay, iyo ka aan alle xasuusnayn waa sidii mid nool iyo mid dhintay. qof nool iyo qof dhintay sawkaafiyo kala dheeri maaha.
sidaasay isu yihiin ruuxa ilaahay xusaya iyo ka aan warbow hayne moogan laysa man maata fasaraxa bimayitin inama almaytu mayitu laxyaa'i shaacirkaasna wuxuu lahaa nin dhintay oo tacabka adduunya intuu ka raaxaystay la aasay mayd maahee maydka dhabtiihi waa ka isagoo nool oo dadka dhex tallaabsanaya haddana maytida ah macnaha waa ruuxa qalbiga iyo ruuxda ka dhintay walow jidhka haba ka tallaabsanayo mid nooloo socda ha noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni xuska alla la xusaya axwaasheeda ugu muhiimsani waxa weeye kow cinda wuruudi amri ilaahay amarkiisu markuu kugu soo arooro haddaad ilaahay xasuusan tahay waad fulinaysaa wa cinda wuruudi nahyi nahyiga alla markuu kugu soo arooro ilaahay xusuustiisu waa inaad ka tagto fi alaxwaali waalmunaasabaat kaadukhuuli waalkhuruuji waasafari wanaxwi dalik xaaladda kale waxa weeye munaasabaadka iyo axwaasha ku soo maraya haddaad gurigaaga soo gelayso haddaad ka baxayso haddaad safrayso haddaad masaajidka gelayso haddii aad ka baxayso haddaad seexanayso haddaad soo toosayso axwaasha noocaasana adkaartii iyo xuskii ilaahay ee laynoo jideeyey iyo ducooyinkii inaad akhrido ayaa xuska ilaahay ku sugan yihi dikrullaahi almuqayad bicadadin aw bizaman xuska ilaahay ee lagu qayday wakti ama tiro waayo waxaa jirta adkaar muqayadaho dee waxa weeyaan tiro go-anna leh awqaad go-anna leh oo salaada markaynu ka baxno adkaar iyo ducooyin aynu akrinaa jirta tiro go-anna leh yacni waa dikri muqayada oo meeshiisa iyo makaankiisa inaad ku dhowrta ah kadalika dikrullaahi almutlaq dikriga mutlaqa ah een dabar ama qayd ku xidhnayn oo ah wadkurullaha dikran kasiira mar walba iyo xaalad walba iyo goob kasta iyo goor kastaba inaad noqoto mid ilaahay xusaya oo carabkaagu aanu ka angegin had iyo jeerna uu ka qoyanaado ilaahay xuskiisa arrinka afraad ee lagu kasban karo maxabbada rabbi waa isaaru maxaabihi calaa maxaabika cinda galabaati alhawa watasanumi ilaa maxaabihi wa in sacuba almurtaqa waa inaad door biddo waxyaabaha uu ilaahay jecel yahay inaad ka door biddo waxaad adigu jeceshahay gaar ahaan marka hawadu ay kugu soo ururto ee naftaada iyo rabitaankaaga iyo waxa aad doonaysaa dhinac walba uu kaaga soo dhaqaaqo ila waa imtixaan waa lagu eegayaaye markaas waxa alla uu jecel yahay waa inaad ka horrayso waxaad adigu jeceshahay waa xaalatlimtixaan waa inaad markaa u banbaxdo waxa alla uu jecel yahay sidii aad u fulin lahayd walow sallaanka aad u koraysaa haba kugu cuslaado waayo naftu ina annafsa la ammaaratun bisuu ilaa maa raxima rabbi naftu waa mid xumaanta had iyo jeer ku farayso oo cadowga kuugu darani waa nafsuka alatii bayna janbayk iyo shaydaanka labadaa haddaad ka adkaato maqaam sanaad gaadhaysaa calaamatu liisaar ama inaad door bidayso waxa ilaahay uu jecel yahayna waxaa astaan u ah saynu hore usoo tilmaannay hadba waxa aad horraysiinayseed mudnaanta koobaad siinayso markay labadaa arrimood isku kaa qabtaan ma hawadaadaad hormarinaysaa mise muraadka ilaahay subxaanah waxaa caddaysay aayaddeenu hore usoo macnaynay qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum ilaa aakhiri alaaya qodobka shanaad ee maxabbada ilaahay ku dhexalsiin kara ama kuu sababi kara waa alcamalu biaahaari asmaa'i illaahi wa sifaatih lilahi alasmaa'u alxusnaa wasifaatu alculaa waa inaad ku camal fasho aahaarta iyo raadadka iyo midhaha ka dhalanaya rumaynta aada rumaysay asmaada ilaahay ee wanaagsan iyo sifaadkiisa sare waayo dee waxa weeyaan aqsaamtii tawxiidka ee saddexda ahayd waxaa ka mid a aliimaanu biasmaa'i illaahi wa sifaatih yacni tawxiid alasmaa'i wasifaat waxaa ka mid ahaa tawxiidka aqsaamtiisii tawxiid alasmaa wasifaat oo waxaynu rumaynaynaa oo aynu sugaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu naftiisa u sugay ama rasuulkiisu u sugay sala allahu calayhi wasalam naftiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku magacaabay ama uu ku tilmaamay ama rasuulkiisu uu ku magacaabay uu ku tilmaamay ayaynu u sugaynaa biduuni takyiifin walaa tamhiilin walaa tactiilin walaa tashbiih iyadoo khalqiga aan lagu shabahayn oon la qaabaynayn oon cidna lagu matalayn
وحويا عن صفاتنا العطلين وأن لا ينكرين وأن لا ديدين سداسين وقصوينا. لكن هذا الإيمان يقتضي أن نتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء والصفات. لكن رمينت أنه رمينا إنه أسماء علي صفاتيس إيا سجد أنه سجينه وحكد لنا يو أي كان سنيسا إنه إلهي كعابدنا إنه مقدوانه أسماء إيا صفاتك وحا أي كان سنيان إيا رادتك كدلنا تصالحان وحين رميسنا أن الله هو الرزاق إنه إلهي أي الرزاق مجعيسو يهي الرزاق كوح أرزاقه يعني أرزاق إذا يسقموا يعدله عليه شرين تأرمين تعرميسي أن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق أطلي وإن يكدلتا إسقى إن أدرسقا يوحى دون يسوء أتكدل بطوط كدونتو إلهينا سبحانه وتعالى وحوها يوحى لقد الباه لقد دونا من طاعديس إن أضيعه إعسيان إلهي وحفظ لك مهره مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة. إذن يعني الروح قلبه سواء طالعه كقيو أسماء إيا صفاتك إيا آثارك إيا معاند أي حنبارسيه لو كعمل خلق ومركز آمنت أن الله هو العلي إلهي علم بدنين يهي دوائنا دوغاته وحوى السمين السبيل رقيهي مرادال أكتاي ديسك إلالي وحمانا سمين إلا إلهي بكروبي مركز إلهي أصبت أن الله هو السميع كمقل كبضن دي حمانا كهبلين إلا إلهي بكو مقليه مركز إلهي أصبت أن الله هو البصير إلهي كأرق بضن كأركي إلو يهي dee xumaanha samaynin way ilaahay baa ku arkaya marka asmaadan iyo sifaadkan waxa ka dhalanaya inaad ilaahay ku caabudo ugu dhawaato oo ism walba macaanida uu leeyahay amalkaaga iyo cibaadadaada inay raad ku yeelato laakiin adigoo waa samiic waa basiir waa caliim waa aziiz waa hakiim hadana waxa doonta hadaad samayso dee iimaankaagu uu dhaawacan yaho si dhab ah umaad rumayn ugumaad amal falin qodobka lixaad waxa uu yahay مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة فإنها داعية إلى محبته روح مؤمنك إنه وفير صلاة مو إيغو إلى أي سمفلكيس ينعموين كيس ترد بضن أن لسوكو بكرين تمو قطية تقرصون بله دومديس يخلق غردان وكوك الله دايستي تاروحينو إيغو ويتاسي وحي كوحن باريسا الله وحاسو نعمها سيي تينو جعلاده marka uu jeclaadana wuxuu iska ilaalinayaa inuu caasiyo inuu caabudo oo ka cabsadana waa ku dadaalaya wama bikum min ni'matin fa min Allah waxa nicmo idinku sugan Allah xaqiisay ka ahaatay ibtidaa ilaahay baa idinku galladaystay waxaad xoogiin iyo xeeladiina ku keenteen ma aha qodobka toddobaad waxa weeyaan inkisaarul qalbi bikulliyatihi bayna yaday Allah azza wa jalla على قدر الكسر يكون الجبر والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قولك الشنادة محبة رب الله كسبنا يا وحيتاي الضوء إلهي هرتي سين وحويا يسد اللقو أو يسكت العيو يسكت الليو أو وحويا قلبي سي قالب كيس بإلهي هرتي سين اللقو أو يسكت الليو وحي علماء إلهين على قدر الكسر يكون الجبر حبا انت كبنينك وياهي ايا كبنينكنا نقضا يعني روح انت الهي ويسكت شبيه يسكت اللي يسكت اللي ايوب الهينا كبيا او كافنيا او كرو قاضيا أليس الله بكاف عبده الله حولي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وعصفاك مؤمنين تكمدا وكوا بحنيا وحي بحنيا أعماش صالحة سمينيا إذا قلوبتهم أي كعب سنيسو إن إلهي حقي سون قنيا عبسك قبا ترى محيد وكلمي عائشة رسولك مركي ويديسي ما قفك الدنبابة يزينيسنيا خمرة عبية وحضية عاصي قامية قفك عبسنيا نبي صلى الله عليه وسلم وحكوه مي يا بنت الصديق
بل هو الرجل الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل منه بل وقفك صومية صلاة صدقة سنية هذا كعب سنية إن لغا أقبل إنما يتقبل الله من المتقين قولك سيدنا الخلوة به وقت النزول الإلهي لمراجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بآداب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة قولك سيدنا محبة الرب اللي قوه لا يوم وإن إلهي إلا لقار نقضه وقت قال له سودك هبينك وهبينك صدح قيبوضه قيبت أوضا بيسا مركا يعنه إلهي سماء الدنيا وسودك ورنا يا دومدي سياي بريون عجيبا يا وحي ويدي سنيون سيا يا وحويا وحي قربا يا دم بدافو بانون ودم بدافا حلقا إلهي إنه الله خالي نقضه لفقه وكتاب كيسا أقريه oo ilaahay sortaago isagoo isu duleynaya oo ka dalbayo wanaag iyo khayr oo dhan shar iyo xumaan oo dhan ka magan galaya sabab arinta uu gunaanadkiyo gabagabadana ka dhigo al-istighfar wa tawba waayo si kasto ilaahay aad u caabudo marna xaqiisa gaari maysid oo waxa weeyaan ma gudi kartid xaqa alla uu kugu leeyahay qodobka sagaalaad waa mujalasatu al-muhibbin as-salihin as-sadiqin wa iltiqat atayib thamarat kalamihim كما ينتقى أطايب الثمر وإن لا فريستو للم يجلسو صاحب لقدرتو ذاتك وناكسن رشاقا إيمان كودي الديانة ذكر رشاقي وإن هذا الكود وناكسن حكمة الله قرطو سيدا مدها وناكسن جيتك الله قرطو واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وكي النبي محمد الأمري نفتي سيرك حبسوك سبرسيو كوا إلهي قلن هرية قلن دنبب عابدية كوا إنو لم يجلسو أو لفرديو ونفتي سوك سبرسيو مالك لنا أروها قلتاقين الدنيا يزينة يقرح كله لكن كوا خيرك وناقو كسوغن ياي معوض وكسبرو هم القوم لا يشقى جليسهم وضد روح الله فريستان كوغوبن لغنا قول دريسان لفردقودا إيا لسعودكوغا لكن ذاتك قاركود إن أدراعدود لسعودكو قول درمو يقول كوغاري ميس قضب كتضع يعني طبناد أوضا بيا ومباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل وإن لغا يراضو سبب كستا وكلا دحق ليس قلبك يا إلهي سبحانه وتعالى وحكستو قلبك إلهي كحجابي وكتيديا ووحويا كلا دحقليا وإن كديراته إذا سكن في القلب حب الله هان عليه كل شيء في سبيل تحقيق مرضات محبوبه قلبك إلهي محبتي سعدي أيدكتو وحوفض ضاضا وحكستا ومحبضا إيا إلها وجعلادي وحوجعليهي وحكستو وحقيقنا وحوفض ضاضا يعني روح قلبي سادي إلهي محبتي كالقاعد في سودقه وحو يعني كد داليا وضك السنة ومريا سيدوف لله وسمين لها وحي لا يجعلها وحين نقانا الدنيا دا يعني اسك ضعيف كيقول لي قيمها لهاي الروح قفضو شعلاده أما يعني وحو شعلاده وحا قيد لي قيد قابنبو ومريا وحلقيا بين يسود الليو سيدورها لقليل لهاي لو جعليه ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلهي سبحانه وتعالى أي صفة سرائس كله ربي جل جلاله يعني الروح مؤمن كي مركب شعلاده شعيل كيسو قلبي سودقه وحو الروح مؤمن كي وضك الصوم مريا إلهي ذلك الانتيس وحك السؤال لو شعلي هاي نوافلين ياهو وضده وقده مريا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أدب هذه المرتبة درجة محبة إلهي لا يتذوقها المحجوبون عن المحبوب كو إلهي محبتي سلق حجابي حجابه كغتيدين كقرصونين هلبة تكواس مرة رميان يعني درجة محبة معان كذا مرة رميان كواس وكو إلهي قلت المامي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وكو آخرنا إلهي أركتدي سلق حجابي الدنيا دنا محبة إلهي كحجابا من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل
ruuxa garanaya waxa uu doonayo qiimihiisa waxa uu ku bixinayaa waa u sahlanaadaa oo kuma cuslaado saabit al-Bunaani ayaa laga wariyay inuu yidhi kaabadtu qiyaama al-layli 20 caaman watalazzadtu bihi 20 caama waxaan jihaad iyo tacab iyo rafaad iyo mashaqo badan u maray 20 sannadood sidii qiyaamul layl aanu samayn lahaa macnaha qiyaamul layl kaan habeenkii tukado 20 sannadood ee ugu horeeyay jihaad iyo mashaqo iyo dagaal badan baa naftayda ka muuqday 20 ku xigayna waan ku raaxaystay oo dee waxa weeyaan darajadii maxabada ayaan ku gaaray وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات انتين كل من محاضرة علمية دو سيدان وكلا وحيدي كغتغينا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.